Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Maxaad ka taqaanaa noloshii Turgot Alb? Turgot Alb wuxuu dhashay markay taariikhda miilaadiga ahayd 1200. Wuxuu ahaa dagaalyahan geesi ah iyo hogaamiye daacad ah. Turgot waxay saaxiibo aad isku jecel oo sidii walaalo ay ahaayeen, sidoo kalena ay isla soo barbaareen Ertugrul oo ahaa halyeygii aasaaska u ahaa dhisidii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidoo kalena uu aabe u ahaa Cusmaan oo ahaa ninkii aasaasay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Turgot Alb wuxuu ka mid ahaa saaxiibadii iyo taageerayaashii daacadda u ahaa Ertugrul, naftoodana u huri jiray mar walba. sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa dagaalyahanadii ugu caansanaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta soo mareen. wuxuuna caan ku ahaa faaskiisa, kaasoo ahaa midkii ugu xoogganaa wakhtigaasi ee dunida yaalay. wuxuu ahaa mid adag oo aad u af badan. Ertugrul markuu geeriyooday kadib, Turgot wuxuu garab istaagay oo taageero weyn u noqday wiilkiisa Cusmaan. goor kastana garabkiisa ayuu ahaa, wuxuuna kala qayb qaatay furashadii dhulkii ugu horreeyay oo ay Cusmaaniyiintu furtaan iyo dhammaan furashooyinkii kaleba. Sannadkii 1289 Cusmaan wuxuu Turgot u diray magaalada Inagol si uu u soo furto oo lana wareego. Inagol waa magaalo ku taalo waqooyiga galbeed ee waddanka Turkiga. Turgot magaalada Inagol wuxuu xukumayay 36 sano, asagoo ka dhigay magaalo nabad iyo barwaaqo isku darsatay. dhimashadii Cusmaan kadib, Turgot wuxuu mar kale garab istaagay, la taliyana u noqday Cusmaan wiilkiisa Orhan. dagaalo badan oo magaalooyin lagu furtayna wuu kala qayb qaatay. Turgot noloshiisa gaarka ah wuxuu lahaa hal wiil oo lagu magacaabo Ilyas, halyeyga naftiisa u huray u dagaalanka diinta Islaamka. hamigiisuna ahaa inay waddamada Islaamku ay midoobaan oo ay mid noqdaan. wuxuu geeriyooday asagoo ay da'diisu tahay 125 sano, wuxuuna ku shahiiday dagaal. asagoo seeftiisa gacanta ku haysta ayuuna geeriyooday. Turgot Alb wuxuu ahaa hogaamiyaha ciidamadii Cusmaaniyiinta intii ay noolaayeen Ertugrul, Cusmaan iyo Orhan. kuwii uu la soo dagaalay waxaa ka mid ahaa Tataarka oo waagaasi caalamka ayaga ka talinayeen, sidoo kalena ay ahaayeen ciidamo aan nixin oo aad u xoogganaa. 552 sano kadib geeridii Turgot ayaa magaalo boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay furteen asaga loogu magac daray, loona bixiyey Turgot Alb si loogu sharfo halyeynimadiisii. Turgot Alb wuxuu ku aasan yahay magaalada Inagol, faaskiisana ilaa iyo hadda wuxuu yaalaa madxaf ku yaala waddanka Turkiga, wuxuuna ka mid yahay hubkii ugu caansanaa ee ay Cusmaaniyiintu lahaayeen. dagaalyahankan geesiga ahaa geeridiisa waxay ka soo wareegatay 695 sano, laakiin taariikhduu reebay ayaa weli nool, waana tan aynu maanta ka sheekaynayno 2020. daawaday muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, sabskraibin ha ka ilaabin. wassalaamu calaykum.